Assalaamu calaykum walaalayaal kusoo dhawaada channelkayga. Maanta waxaan idin tusayaa cheesecake sida aan u sameeyay. Please hadaa ku cusub tahay subscribe, like, comment and share. Hadaa hore noola joogi jirto please comment, like and share. Ani waxaan sameeyay cheesecake with faraawlo iyo cheesecake with caramel. Daawasho wacan. Waxyaabaha u baahanna markuu koowaad waxaa ka mid ah biirba hal baakad oo vanilla, hal qaando, hal baakad oo buskudka haystid, 3 qaando oo warange ah, 60 gram oo subag ah, labno beyniyar u baahanahay 600 gram, waxaan u baahanahay hal baakad oo kareem 200 ml ah, hal galaas oo sokor iyo 4 xabo oo ukun ah. Haddana sameyska bilaabina. Marka koowaad makiinada oo wax lagu shiido soo qabsaday buskud ku dhex shubayaa iyo subaga. buskudka rabtiin isticmaal kartaan, biskuit tea isticmaal waya. Hadda waxaa soo qabsaday weelkii oo ku sameysan lahay buskudka ku shubo. Marka buskut ku shubo waa simsima hal dabaq oo qad fiican oo dabaqad fiican soo igu noqdo oo siman. Kadibna finjeerka geenaya inta kareemka oo cheese-ka asii diyaarsan lahay alaas kiyo igu jira. Hadda waxaa soo qabsaday weelkeena 4 xabo kunta ku shubo iyo sokorti waa walaaqa. Marka qaarkood waxaa sameysan kartaa hadaa rabtid digsi biyo kulul inta ku shubatid oo kunta iyo sokorta marka walaaqaysa kor saari kartaa si ay sokorta iyo buugu dhalaasho. Ani saas ma sameynin, sokorta caadiga u dhalaalinaya. Waxaa hadda u baahanahay marka koowaad digsi inaan dabka saarano. Digsiga dabka waa saarano 4 xabo kun iyo galaas sokorti ku shubay oo si fiican isku soo dhaxgaleen. Hadda beyniyarka labnaha ku shubaya 600 gram ku shuba, halkii baakad 300 gram waay. Kadib kareemka ku shuba, haddana waxaa ku shubaya warankada. Waa walaaqa dabka wax yariis uu igaabsan yahay. Kuskuus soo iga yar maanta waa walwalaaqoya. Hadda waxaa ku dara vanillada ilaa waxa sugaa inay soo adkaato kareem camal ay noqoto. Buskudka oo finjeer ku jira soo bixiyay. Hadda hal caramelna ku shuba rabaa, hal dabaq oo caramel u sameeyo. Waxa soo laab digsigeena saan u yahay oo adkaado. Hadda waa soo dejiyay caramelka iyo buskudka oo kor shubaya. Cheesecake laba way u sameysan kartaa jiro. Kareemka oo cheese-ka hadda sameynay hadii rabtid inaa caadi u qastid furunka dhex gashan kartaa, hadii rabtid fridge-ka inshallah midka furunka waa idin soo sameey doona. Hadda waa kana waa wada samee fridge-ka u qaada hal habeen inuu fridge-ka ugu jiro waaye meesha normaalka ah. Waa kana hal habeen kadib waa isku soo laabanay. Waxaa soo diyaarsaday caramel oo sauce ah iyo loos caadi waaye. Caramel sauce inshallah video waxaa idin soo geli doona saa u sameeyay. Caramelka isticmaal caramel gaan waaye. Caramel sida loo sameeyo inshallah video waa soo duubi doona. Haddana caramelka iyo waxa isku dhex daray looski waa kor saaraya. Ani waxaa ka sameystay 2 xabo oo cheesecake ah, midna caramel oo loos la u isticmaalay, midka kaleentana faraawlo u isticmaalay. inshallah caramelka hadda aan sameeyay midka fridge-ka loo isticmaalo waaye. Midka waxa sameynaya oo furunka ah waan idin soo geli doona. Haddana waa kana midka waxa soo diyaarsaday faraawlo ahay. Faraawlo sauce-kiisa kor shubaya. Ina hal habeen aala sugtid way fiican tahay lianahu si fiican oo ku qabowaa kareemka iyo buskudkana si fiican qurux ugu noqonaa hadhowti marka service-ka geysaysid. Hadda waa kana waa dhameynay cheesecake-keeni oo 2 xabo noo ahay, mid faraawlo iyo mid caramelka ah. qof walbo sameysanayo caafimaadka cunaa wajinaya.
Thank you. Bye bye.